kooxda Southampton ee ka dhisan horyaalka wadanka Ingiriiska ayaa la wareegtay hogaanka tan iyo 1998 waxayna ku maadeysteen madaxweynaha wadanka Mareykanka Mr Donald Trump iyagoo ku maamusay taariikhda ay dhigeen. kooxda Southampton ayaa 2-0 uga adkaatay kooxda Newcastle oo xalay iyo Jimcaha ahayd kadib markii ay goolasha u kala dhaliyeen ciyaartooyda garbaha uga ciyaara Jay Adams iyo sidoo kale Stuart Armstrong. ciyaarta kadib waxa ay soo dhigeen barta Twitter-ka ee kooxdu leedahay la sareynta horyaalka wadanka Ingiriiska iyagoo ku fadhiya hogaanka 16 dhibcood isla markaana farqiga goolasha kaga sareeya kooxda Liverpool oo ku soo xigta. waxay ciwaan uga dhigeen iyagoo farwaaweyn ku qoray joojiya tirinta iyagoo ku maadeysanaya Donald Trump kaasoo Twitter-ka ku soo qoray habeenkii Khamiista joojiya tirinta markii uu sharax la tartamayay Joe Biden kaga hormaray tirinta codadka doorashada madaxweynaha. taageerayaasha kubadda cagta ayaa ka faa'iideeyay sawirka iyo qoraalka ay Southampton soo dhigtay barta Twitter-ka ay ku maadeysatay madaxweyne Donald Trump. Franklin Noren oo ah khabiir dhanka ciyaaraha ku xeeldheer isla markaana hore uga tirsanaan jiray kooxda Southampton ayaa ku baaqay in mushaar kordhin loo sameeyo qofka gacanta ku haya Twitter-ka kooxda Southampton. Abdulrahmaan Isaaq, Telefishinka Star. maxaa wadada ku dhajin noo bana tariiqade maxaa ku dhacay walaal digsa bangiga Dar es Salaam lacag kala soo bixi lahaa oo kaalay maanad isticmaalin adeega kaafiya oo maxay adeega kaafi adeeg ku sahlaya adoo jooga goobtaada shaqo inaad lacag dhigan karto kana la bixi karto akoonkaaga Dar es Salaam haddaan isticmaalay adeega kaafi aad baad u maasantay